muddo ku siman 28 sano ka bacdi ayaa maanta waxaa dib albaabada loogu furay xafiiskii howlaha maraakiibta iyo gaadiidka badda ee ku yaalay magaalada Berbera. munaasabad qaali ah oo xafiiskaasi xadhiga laga jarayay ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada horumarinta gaadiidka badda, deegaanka iyo waliba taliyaha guud ee ciidamada badda Somaliland. munaasabadan ayaa dhankooda iyaguna waxaa qayb ka ahaa mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo waliba khubaro sare oo ka kala socotay dekedda iyo kasanka Berbera, waxaana halkaasi uu wareen faahfaahin ka bixiyay saraakiil sare oo ka socday wasaaradda horumarinta howlaha maraakiibta iyo gaadiidka iyo waliba barsaabka gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan oo isagu si diiran u soo dhaweeyay furitaanka xafiiskan. Samaanta aad ugu faraxsanahay mar haddii waaxda la furay in waaxda furitaanka oo kaliya qalabkeedina daba socdo haddii ay noo furaan oo aynu ogaano berito ee doonta badda soo galaysa ama laashka yar halka ka baxay jib yar oo lagu xidho mustaqbalka aanu rajaynay inay keenaan calaamad yar ay ku xidhaan oo aynu ka ilaashan karno Berbera inagoo joogna aynu arki karno baalka halka ku soo jira cid kale hadday noogu soo korodhana aynu arki karno taa kale iyaga ayaa hormuud u ah waana taan rajaynayna insha Allah talaabadaas كل وسيرك يسقى إنه شرح دونه حسفيليا وحيابها سيون كل وحيابها نوجم هيمسن إن نكون دونان كترافيك بالوي يا كجرنغا ترافيك جاسي لبدا قاربي كلا سارة بده وحي كدعة يدنا ترافيك جاسو كلام بهانتهاي إنه كجر هذا جديد كبدا مين سنتر كده واحد لقرتي مرهدان هرجي وحياها جاسي مياش وحي أنت بدن كشقيان قبل كهرجيسة لكن واحد شقده لما أنت واحد يكون صابسنتهاي جديد يبض مرة جديد يبدأ كوس أبسنتهاي وزير كيو وحلا يسلا قرتين حفيز كده وجوي واحد جديد كبدو هذا حرمتي سوقوي نقبل كساحل هذا بقى واحد اللي محيك شغير سي قرن كوقع قبل سنة صاير هول كي قادنا يسمحوه هاي وزارة اللي واحد لسه ساعة لما نحرق يشروعها كوس أبسن جديد كبده نسيق جوشي إلى وزارة إنسبكشن كرايسو واي أكتر لما جديد كبدل دل كنا يمنايا dekedaheenna iyo badaheena isticmaalaya halkay customisko kale ka gudanayaan inay ogaadaan markabka waxa saaran dekedu ay ka gudanayaan inay ogaadaan markabka iyo mitirkiisa iyo cabirkiisa iyo baarkiiskiisa iyo meesha ku xidhmayo waaxdan waxay ka gudanaysaa iyaduna inay ogaato markabkaasi safe ma yahay dadka saaran iyo alaabta saaran safe ma tahay iyadoo loo eegayo xeerarka iyo shuruucda jira anagu maanta aad baan ugu baahnayn hay'adan inay nagu caawiso xeerkii qabanayay aanu fulin lahayn inay nagu caawiso noo samayso aanu ku dhaqanno marka maanta waa maalin aniga aad farxad igu leh maadaama aan helayo hiil sharci aan helayo intaasi kadibna waxaa hadalka qaatay laguna soo dhaweeyay munaasabadan qaaliga ahayd ee lagu furiyay xafiiskan howlaha maraakiibta iyo gaadiidka badda wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka Somaliland Shukri Bondare iyo waliba wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Cabdilaahi Abukar waxa maanta ka xafiiska maanta la furay ee ah xafiiska gaadiidka badda aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa hadaan nahay anagu bahda deegaanka aad baan u soo dhaweynaynaa waxa ugu weyn had iyo jeer walaacu ka yimaada waxa weeyaan maartay marka la leeyahay wayska ama pollutionka ama maartay qashinka markaynu ka hadlayno waxa weeyaan meelaha ugu daran ee hadana qarsoon weeyaan aan la taaban kareynin waayo waxa la leeyahay waxa maraakiibtaasi sidaan halkay ku dajinayaan iyo halkay ku qubayaan war looma hayo oo markii koobaad muddo 7 sanadood xafiis noocan oo kale uu ka shaqeeyo dalka Somaliland waxaana kale sabab u ahaa duruufii jiray Somaliland gaadiidka oo la yiraahdo gaadiid la'aan iyo horumar la'aan khabiiradii ka taliyay dawladdeena cusub waxa ay garteen inay muhiim tahay gaadiidku inuu noqdo wasaarad gaar ah waana wasaaradaha ugu waaweyn ee caalamka jira inagu sidaynu hore ognahay waxay noo jireen markii hore waxa la yiraahdo fishery administration amba qaybtii kalluumaysiga ee shaqeynaysa لكن قيبتين ترانسبورت أما مارتم administration كسومالله مو شغينين waxaanu garanay marka in waxdaasi ay shaqeyso waxaanu ogaanay xeer Soomaaliland yimaada oo wax lagu maamulo waa xeerka maaritaanka
somaliland 1887 buu xeerkaasi yimid oo ingiriisku markuu inoo yimid unbuu xeerkaasi la socday xeerkii 1966 maadaama dastuurku inoo fasaxayo inta xeer la helayo in la sii isticmaalo xeerarkii hore dowladda Soomaaliya ee rayidka ahayd ma tii militariga ahayd tii militariga ahayd waxay samaysay xeer 1989 waxay markaa ila tahay anagoo ka faa'iideysanayna khabiirada aqoonta durugsan u leeyahay arrinka maritime-ka waxaan jeclahay inaanu si fiican wixii taalkayaga ah kartidayada inaynu gelino insha Allah haddii Allah ka dhigo mustaqbalka dhow وياسين جامع علي تلفزيون عالمي قاهي بولشة تي في مقالة حبيت بربراء